magacaygu waa jaamac walaal kuma maqlo sidaa ugu jir hello walaal sidaa ugu jir hello walaal laguma maqlo walaal hello walaal mana maqashaa walaal khadkaa kaa xun mar labaad maad nagu soo celin ها هلا وربا جامع ولا الوانكم مقلا استجي سيرو نور معني وهذا سيرو عادية مقعاقة دا ودن كاد شوكتد وريا إلهي أقان وربا جامع نولي مقالة موشن شرمال وار شرمال وشهادة شاقة وادنا دبتانا وحكا هادلا ورما شرمال كاد شوكتا شرمال كان شوكا مقالة موشن war da-daada iyo magacaaga tan iyo 20 baan jiraa jaamac weeye barnaamijkan intaad furtoo dhan waan la socday gabadhii aad igu soo xidhay niyow reerkoogii lacag baan u diray qarash baa i galay aniguna waxaan isaga shaqeeyaa site firma 8 saacadood baan soo istaagaa deecagaha ay soo barara laakiin inaadaro arrin adag baa ila soo daristay inaad ila talisaan doonaya war anigu talinta dhakhtarra ma haysto cilaaj ma haysto sheekh aadan siire ma yihi walaal jarmalkaad joogtaa war hablihii waad nasalcisan oo annagiina waanu xumbaynay oo waanu daalay anigu inan baan ku siiyey inantii ma la hadasho contacti ma la samayso romantic ma noqotay war gabadhii aad i siisay romantic waan noqonay waan la hadlay maalintan sirigee masaajidka ayaabay arrini nagu soo korodhay inadeero war miskiidka inantu ilaan muslim bay ahayde wariya ilaahay yaqaan inan baa khadka hadda ku jirto joof iyo joorad leh waqti badan baan ku siiyey inantu muslim bay ahayde macnaa miskiid iyo waxaa intaad iga daysad inantii ma la hadashay maxaa dhiba idin kala soo dhex maray inantii waa la hadlay inadeero maalintan masjidka tegayna bay igu tiri inantii niyow uur baan leeyay haye dabadeedna ilaah baa yaabii keenay inaadee haye inantii waxay ku jirtay meel la dhaho basphone group iyo wax saasa basphone yaa phone group wax la dhaho ciyaalka la isugu geeyay ku jirtay haye amariya xaasil inadeer hadal yaan kugu dawaqina gabadhii waxay tidhi niyow uur baan leeyay nina waa u kaadi cali walaal cali salli calaa nebi anigu macnihii hadda dacwad qaadi maayo anigu caliyow hadda maxkamad ma haysto anigu caliyow yacnihii walaal waxaan hadda daadiinayaa waa barnaamij inan baan ku siiyey inantii waad la hadashay ama uur ha ku soo baxo ama afka ha u dhacdo anigu walaalayaal uurkooga kuma jiro dadkaan isa siiyo war dhibta iyo aflagaadada aan kala daysano inantii markaad la hadashay uurka ku soo baxay dee muxuu ahaa inan uurku qof uur iskama qaadee macnuu ku qaadaaye afghanistan bay u leeday uur markaa waxay ku tiri adiga wiil inadeero wi astur waxaan sameeyo hadda ma garanayo in waxaan u baahnay inadeero inaad mar kale in buugga naxariista qarashkaygii baxayna iska ilaawo buugga naxariistana iigu celisa mar kale horeynu isku waraysanay buugga naxariiska in badan baad ku xusnayd inan baan kuu helay aad macnihii waddan ku wada nooshihiin isku dhowdihiin from jarmalka dee inkaarta la soo daristay anigu garan maayo ka gudub inan baa hadda khadka ku jirta jaamac aan ismaqallo walaal anigu inanta ma dhalin waddan kalama iman ma aqoonin sidaad iga tahay bay iga tahay kuwa hore sidaad iga tahay bay iga yihiin ummadda soomaaliyeedna way ina maqlaysa halka aflagaadaad ii soo qortaan ii soo dirtaan meel walbaad igu aflagaadaysaan macnihii aniguna idinkama mudni inaad i aflagaadaysaan public baan inan kaa siiyey public baad igala soo hadlaysaa inan baa hadda khadka ku jirta joof iyo johorad leh maadaamaad miskiin taag daran iyo sayd firmooyin iyo 8 saacadood oo soo taagneed iyo dhuux qorar ka warrantay inan baa hadda khadka ku jirta inantaasaan ku barayaa sidaa khadka ugu jir okay hello salaamu calaykum walaal gabar soomaaliyeed mar labaad وعليكم السلام أبو abaayo way dhaaftay abaayo caawa waxa khadka ku jira ninka jaamac ee jarmalka ku nool jaamac cabashadiisa waad arkaysaa waanu xiiqno walaal qanjihii baana bararay walaal jaamac jarmalku jooga inan baan siiyey imiga muddo laga joogo 5 bilood iyo ma bar sidoo sheegayo inantii anigu ma garanayo inan jugaysan iyo waxbuu ka warramayaa uur iyo macnihii wuxuu ka warramayaa wax ayade macnihii uurku dila waa wax jira ee adigu inankaas inantii way uur iyo waxbay Afghanistan iyo u yeelatay buu ina leeyahay mar labaad ugu celi da'daada iyo magacaaga iyo meeshaad joogtid
waxaan joogaa Nairobi aan joogaa ku sheegay 20 jiraan Nairobi bay ku nooshahay war jaamac may maqashaa jaamacow waa ku maqlaa haddaad i maqashid oo qof ilaahay iyo insaan kaba garanaya tii waxay ku nooshahay 22 jir Kenya ku nool Jarmalkii waad ka cabatay saasay ku gashay seedu aragtaa may ku maqantay war in walaal imagaba haddaad wax uur isku og tahay war ilaahay yaa yaqaan ama wax dhib ku haysatay inta Kenya joogtay ama aad macnihii nin lagu daray waadoo yar iyaad wax og tahay inanka u sheeg abo saga muddo qaba saga intuu dadkan wax weydiinayaan yaa walaal mar baan dakhramay gabadha hadaanay ku qornay igu soo qabaniyo igu soo qabo haday joogto ku maqantayna iga dhaafin adeerow hay dhibin aniga mar labaad lacag iga shubi war dhibitaada ay soo wacay walaal anigu gurigaagii kugu maxaan kugu dhibaya walaal in kugu sameeyay anigu ma dhibtaadan ka talinaya aday soo wacay inantu way caafimaad qabtaa inankan cali baa la idhaa ilmo horuu soo dhalay ilmihiina waa lagaga murmay waa liibe runtaan cadaynaya wallahi wuu ii sheegay ilmo hore lagaga murmayna uu soo dhalay oo wuxuu ka yimid Soomaaliya magaalada la idhaa Qarbi Dahar markaa walaal waqti badan baan idin siiyey cali way kuu sheegtay inay caafimaad qabto haye hadday caafimaad qabto igu soo qabay inaadeer haddaanay wax juga qabin caafimaad qabto maqashii wariya ilaahay qana walaal maqashii mar labaad inaad caafimaad qabtid cali abo saga tuqo miya saga weydii saga tuqo dadka maxaa intaas ma caafimaad qabaan alxamdulillah rabbil caalamiin anigu walaal ma xisku miya habeen walba waa macabashaan ku jirnaaniyo Israa'iil baan ku caban jirnay iyo Pakistan iyo wadanka boqor Salmaan ma Jarmalkina ma noogu darsamay dhiikar baa laga qaaday ya walaal iska tuqaada boo bilaan ku xalba laga kulmaayo cali lama maqlayso war yaa cali walaal Soomaali nabi Maxamed ya walaal Allah baan ku jiraa waan isku xoogsadaa nin xoog labaanahay lacagtan qaato waxaan ku baxsho oo ubad ii dhala kaliya taan u baahanayn adeero ubadka Allah bixiyo cali waa daalan tahay 8 saacadood baad shaqaysataa oo hinta iyo calaalka faraha badan qaar horaan isku nacnay caliyow walaal Jarmalka umada ku nool leefka hay gelin nin nabadoon baanahay adigana walaal waxaan ku leeyahay risiq Allah ku barakeeyo inantan haddaad soo qaadan kartid haddaad u tagi kartid haddaad fasaxaysid iyo haddaad lu goynaysid ba haddaba halka ka caday caliyow war hadday caafimaad qabtid tagidaad sheegaysaa waan la soo joogayaa bilo niyo qushi ka gudub uu ka ku sheegay walaal inuu ku yimaad buu diyaar u yahay walbahaarkii iyo waayaha ka farabatay Jarmalka iyo qurbaha walaal inantaay ma ku faraxday oo kaliya laab ma soo dhaweysay mise wax kala jira hello laguma maqlay saa ugu jir hello sug war sug caliyow walaalo inanta ma ku qanacsantahay oo ku qanacsan ma ku siiya mise qof kale u eega ma wacaadi waabo wacaadi caliyow wadna waad maqashaa labadiinba la way ku qanacday Soomaa waa taa wadiga maqlaya way kugu qanacday ma sha Allah farxadi furan saaxib farxad shuran ay waayahay walaal farxad shuran ducada ku dhawaadaya adiga ducada kan duca kaaga dhacmaysa ilaa uu meher ku xalaashado ilaa uu ku duceeyo aniga ma adiga waa inuu ku duceeyo hadda ku dacwo ku socdo amaad noo ducaysay ducayna waa isku wada ducaynay adna waa ducaysantay iyana ii ducaysan adeero ii ducaysan والله رجع شرمك واكوا دالن إلهي بيد كل داري برنامج كشير قرية سومالية إن هذا الوان بديدني وان وارشان تركوجي وشان سلام تركوجي يا كافر فروايقة فرفرته إذا بريت ولاد ناصع عبان صاد أورانا يسا كينياتي بيقولوا لها إذا يا كمسؤولة إذ كمسؤولة إن الله دونا بالهورت ما كنت كمسؤول هاي نورت war anigu mas'uulka deynaadan qofka telefoon baan ka qoraa weeridkiisa ma aqaano meeluu gala ma aqaano aad baan idin salaamaya labadiinuba walaalayaal waad isku dul caajisteen hadaalina sidii kale u daalantay cali waan ku salaamay cali hay waa ka qaadaynaadar waa nabadgeliyo dadkan Jarmalkay wada daalan walaalo inantay adiguna Allah isku kiin asturo cali
هيا بو إن شاء الله. هيا بايو يا سلام.